السلام عليكم سو dhawaada asxaabta Ramadan Kareem waa casharkii sagaalaad aynu kaga hadli doono barnaamijka Premiere Pro casharada soo si firo uga baxa channelka waxaan idin soo jeedin doonaa anigoo ah Haydar maanta casharkan waxa uu ku saabsan yahay color correction ama qaabka aad u sahlaysid colorka uu leeyahay videogaagu marka ugu horeysa waad soo import gareysanaysaa qaababkii hore aynu soo marnay casharo badan aynu soo qaadanay waxaa kamid ahaa sida audio loo hagaajiyo sida importing loo sameeyo sida title lagu soo daro waxyaalo badan basic editing soo loo sameeyo sidoo kale shalay waxaanu ka hadalnay timeline-ka iyo wax kasta oo ku saabsan marka waxa ugu horeeya sameynayso waxa weeye inaad import sameyso kadibna aad sequence cusub sameysato sequence cusub sida loo sameysto waan soo marnay sida ugu fudud loo sameyn karo waxa weeye inaad drag and drop ka sameyso bannerka loo yaqaan project panel kadibna aad ku jiido meesha loo timeline-ka markaad ku jiido waxaad rabtaa inaad talaabadii ugu horeysa aad sameyso si aad u saxdo muuqaalka kalarkiisa marka ugu hore waxaad sameynaysaa haddii waxaynu joognaa meesha aan ku shaqeynayno waxa weeye editing tabka aynu joognaa ama workspace-ka qaybta editing-ka aynu joognaa waxaynu tegi doonaa qaybta loo yaqaan color haddii aad isticmaalayso wixii ka dambeeyay 18kii Premiere Pro 18kii wixii ka dambeeyay ama 18kii laftarkiisa waxaa laga yaabaa inaan tab iskalka wall wixii versionadii dambe ayaa lagu soo kordhiyay tab iskalka waxaad tagaysaa window kadibna waxaad tagaysaa workspace kadibna waxaad ka dooranaysaa color markaynu hadda waxaan dooranaynaa colorka ayaan tagaynaa qaabka ayuu ku soo baxayaa meesha ugu horeysa aad soo furanayso waxaa loo yaqaanaa lumetri scope lumetri scopeska ayaa soo furanaysaa lumetri scopesku wuxuu leeyahay waxyaalo badan waxaa laga yaabaa kan kaliya inaad ku doornaado waxaad sameynaysaa right click ayaa leedahay lumetri scope dhexdiisa waxaad dooranaysaa laba wax ayaa dooranaysaa waxa loo yaqaanaa waveform iyo factory scope factory scope markaad ku soo darto qaabkan ayuu kugu soo baxayaa wareegga yar ayaa waxa loo yaqaanaa factory scope kana waxa la dhahaa waveform marka waveformka ayaan wax ka bedelaynaa tusaalahan waveformka halka kaaga muuqda waxaad tagaysaa qaybta setting-ka waxa laga yaabaa inaan saa kugu soo bixin adiga kadibna waxaad tagaysaa waveform type RGB kaas ayuu ku dooran marka hore adiga si original ahna marka waxaan tagaynaa qaybta lumada ayaan tagaynaa saynu u saxno hadaanka iyo madowga uu leeyahay muuqaalkeena markaad saa sameyso color-kana aad joogto marka hore soo inaad soo furto lumetri scope kadibna lumetri kala ayaa tagaysaa halkan ayuu kaaga soo baxayaa kadibna waxaad dooranaysaa muuqaalka aad wax ka bedelayso haddii aan ku doornayn oo halka joogto lumetri color-ku kuma soo baxayo highlight ba fuulaya laakiin si marka hore waa inaad doorataa marka waxaanu sameynaynaa si aynu u aragno isbedelka ku yimi muuqaalkeena waxaanu sameynaynaa halkan aynu ka jaraynaa qaybtan aynu hagaajinaynaa qaybtana waxaanu ka dhigaynaa sideedii hore marka waxaanu tegaynaa clipka xagga yaala si aynu u hagaajino dhinaca kan aad aragtaan 0 iyo wuxuu tagayaa waa inuu u dhaxeeyaa cadaanka iyo madowgu 0 ilaa 100 qaybta 0 waxa taabanaysa eberka waxa taabanaya madowga hadda madowgeena waad aragtaa masina waxa laga yaabaa aad buu isugu dhaxaysan yahay shucaac badan ayaa ku furan marka waxaad tagaysaa qaybta cadaanka ana waxaad geynaysaa 100 adigoo ka saxaya qaybta basic color correction waxa laga yaabaa marka ugu horeysa inuu saaka yahay marka basic correction ba furanaysaa markaad furato basic correction waxaan rabnaa inaynu saxno qaybta madowga ee muuqaalka uu leeyahay waxaan tagaynaa blacks meesha ku qoran tahay oo qaybta toonka ah waxaanu sameynaynaa hoos ayaynu dhigaynaa waad aragtaan waveformkii iyo hoos ayuu aadayaa markaynu hoos u dhigno marka muuqaalkiina waad aragtaa waxa laga yaabaa inay shaashadu kugu yaraato ama aadan si fiican u arag kuwan waxay ku faa'iideynayaan inay sida ugu saxan ku tusaan kalarkaaga ama meesha uu marayo muuqaalka kalarkiisu marka waxaanu geynaynaa meesha ugu habboon waad aragtaa hadda muuqaalka dhexdiisa haddaynu eegno madow aad saayid u ayaan kusoo biiray marka waxaanu sameynaynaa waxaanu geynaynaa meesha eber ayaynu taabsiinaynaa 0 ayaynu taabsiinaynaa waad aragtaan hadda 0 ayuu taabtay intaas ayaynu ku deynaynaa qaybta sare ayaynu tegaynaa 100ka ayaynu taabsiinaynaa weight-ka wax yar baynu ku daraynaa 100ka ayaynu taabsiinaynaa kadib shadow-ga waad aragtaan hadeer shucaac badan ayuu ku jira haddaynu shadow ku kordhino madowgii kor ayaa looga soo kacay muuqaalkana shucaac badan ayaa ku biiray marka shadow-ga 0 isku celi kadibna markaad rabto inaad 0 ku celisid
meesha yaro grant ayaad double click ku dhufanaysaa wax kasta eber ay ku noqonayaan marka waxaan dhigaynaa hoos aynu dhigaynaa wax yar inta aynu sameynaa highlight-ka sidoo kale hadaa ku kordhiso cadaankii ayaa ku badanaya marka highlight-kana sidoo kale wax yar ayaynu ka dhimaynaa tusaale 4K ayaynu deynaynaa contrast-gana xoogaa yar ayaynu kordhinaynaa wax yar ayaynu kordhinaynaa si uu u soo baxo muuqaalkii marka saas sameyno waxaynu saxaynaa weight-ka uu leeyahay muuqaalku marka Premiere Pro isaga ayaa ku saxaya waxaad sameynaysaa bas eyedropkan ayaad click siinaysaa waxaad ku dhufanaysaa meesha ugu cad uu leeyahay muuqaalkaagu haddaynu soo dhaweysano tusaalahaan boqolkiiba waxaynu ka dhiganaynaa 75 kadibna waxaynu taabanaynaa H oo handy tool waxaynu geysanaynaa meesha ugu cad waxaan rabnaa meesha yar oo xambadu ka kacday inaynu taabsiino eyedropkeena waad aragtaa kadibna fit ayaa leedahay waad aragtaa tasoo loo saxay waxa aynu tegaynaa kadibna waveformka aynu ka tegaynaa waxaynu tegaynaa factory scope isagu saturationka ayuu saxaa waxaynu tegaynaa xagga ugu hooseysa ayaynu tegaynaa saturation ay ku qoran tahay markii uu yahay black and white muuqaalkeena waad aragtaan hadda factory scope-keena wuxuu noo sheegayaa calaamadda yar halka ka muuqata dhibicda ayuu ka dhigayaa wuxuu ku sheegayaa markaad aragto calaamadda muuqaalkaaga inuu yahay black and white marka double click aynu ku dhufanayna suu boqolkiiba usoo kordho haddaad eegto muuqaalkeena waxa ugu badan oo ku jira kalarka ugu badan oo ku jira waa laba kalar waa blue sky oo badda ah iyo greenkaas oo dhirta ah marka waxaan sameynaynaa waynu ku kordhinaynaa waad aragtaan factory scope-keenu colors ayuu leeyahay blue sky cyan-kii weeye greenkii yellowgii redkii marka hadba meesha u badan ayuu aadayaa hadda waxaan rabnaa inuu soo aado greenka iyo cyan-ka waayo labada kalar oo meesha ugu badan weeye markaynu ku kordhino salahan haddaad ku badiso waxa laga yaabaa qaab daro inuu soo baxo oonu si fiican muuqaalkaaga u muuqan marka waxaan sameynaynaa in yaroo ku filan aynu siinaynaa dhinaca ugu badan soo aaday waa maxay waa dhinacii greenka iyo cyan-ka oo ah xaggan iyo dhirta iyo badda marka dadana wax yar baynu kordhinaynaa saas ayaynahay hambalyo waad saxday muuqaalkaaga kalarkiisii waxa ku dhiman bas waa inaad saxdo color grading aad ku samayso insha Allah cashar kale ayuu noo noqon doonaa color grading-ku waxaan kale aynu sameynaynaa waxaan rabnaa inaynu aragno isbedelka ku yimi labadii muuqaal ama muuqaalkeenii marka kan inoo hagaagsan iyo kan aan hagaagsanayn ayaynu isbarbar dhigaynaa waxaan rabnaa inaan transition ku soo darno si aynu aragno isbedelka ku yimi transition ayaa jira loogu soo daro oo markii aad wax isbarbar dhigayso aad adeegsanayso wipe ayaa lahaa halka wipe ayaa ku qoraysaa kadib meesha ugu hooseysa ayaad ka doonaysaa oo soo jeedaysaa transitionka ayaad halka dhigaysaa tusaalahaan halka ayaad dhigaysaa marka waxaan rabnaa inaynu yareyno transitionka isaga dooro kadibna saadhe hadda haddaynu eegno aynu soo weynayno program monitorkeena aynu dhahno play waad aragtaan markii hore saas u ahaa transition halka ka muuqdo waa aragtaan oo saa u maraya line-ka hadeer aad ayuu kala duwan yihiin weliba waxaan rabnaa in saturationka wax yar ku darno soo si fiican ugu soo baxo aad ayuu kala duwan yihiin markii hore shucaac aad u badan ayaa ku furnaa oo waxyaalaha markii kamaradu ay ku duubto la rabo inaad iska hagaajiso kala correction samayso kadibna muuqaalkaaga si qurux badan ayuu muuqanayaa waad aragtaan isbedelka ku yimi marka waxaan u maleynayaa inaad aad u fahantay waxa loo yaqaano color correction waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan waxaynu balanaa muuqaalka xiga iyo maalin kale